kulanti wacan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena wararka isha sirdoonka maanta qodobada aan ku eegi doonno waxaa kamida waayo cidda fowdaysay khudbadii madaxweynaha dalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo sheegay in waxbarasho lacag la'aan ah ay dawladdiisu siisay 65 arday madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ciidamada Mareykanka ka saaraya dalka Jarmalka sababtu maxay tahay qodobada iyo kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaan ku eegi doonaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbadiisa ka jeedinayay kalfadhiga xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in dawladdiisa ay tahay midii ugu horeysay ee bixisa waxbarasho lacag la'aan ah madaxweynaha ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay waxbarasho lacag la'aan ah siisay 65 arday taas oo dhalisay dood badan oo ku aadan sida ay macquul tahay hadalka madaxweynaha in dawladda Soomaaliya ay 65 arday oo kaliya ay waxbarasho siiso waxa uu sidoo kale sheegay in dawladda Soomaaliya ay sii wadi doonto waxbarashada lacag la'aanta ah ay siiso ardayda Soomaaliyeed magaalada Muqdisho waxa ku yaala iskuulo dawladdu ay leedahay oo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay maamusho isla markaana macallimiinta iskuulada ay lacag siiso wasaaradda waxbarashada Soomaaliya isla markaana lagu dhisay mashruuci aad iskuulada ee la hirgeliyay xilligii dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxa sidoo kale ku yaala Muqdisho jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo dib loo howlgeliyay 20 Agoosto sanadkii 2014 isla markaana ay wax ka bartaan arday kumanaan kor u dhaafaya waata hadii aynu qodobka halka kaga gudubno iminkana waxa sawaxan iyo fowdo ku dhamaatay khudbadii madaxweyne Farmaajo ka jeedinayay kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka tobanaad ee Soomaaliya waxa la isku khilaafsan yahay isha qalalaasaha iyadoo ila wareedyo gaar ay sheegayaan in ay xasarada bilaabeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo urin iyo miis garaacis mar qura isku daray goortii uu madaxweynuhu khudbadiisa bilaabay waxa la arkay xildhibaanada qaar sida Sanyare oo xitaa firimbi soo qaatay si qalalaase loo geliyo khudbadda madaxweynaha taas oo ka dhan ah anshaxa iyo habraaca hoosaadka baarlamaanka Soomaaliya guddiga anshaxa baarlamaanka oo isku dayay in ay xiisada damiyaan ayaa ku guul dareystay waxaana hakad gashay khudbadii madaxweynaha oo ahayd mid si weyn loo wada sugayay khudbadda madaxweynaha ayaana muddo 10 daqiiqo kor u dhaafaysa hakad ku jirtay waxa la arkayay xildhibaano miiska garaacaya iyo kuwa kale oo kuraasta kor u haysta kuwaas oo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa jirta arrin kale oo sheegaysa in ay qaylada ka qayb qaateen saxaafadda madaxa bannaan oo ka careysan in waxooga ah lagu adkeeyay in ay madasha soo xaadiraan iyada oo la faray in tabinta iyo soo duubidda u daba fariistaan TV-ga dawladda ee SNTV guddiga nidaamka baarlamaanka ayaana isku dayay in ay arinta xaliyaan kuwaas oo ugu dambeyn ku guuleystay in ay khudbadii sii socoto waa tahay qodobada kale noo harana waxa kamid ah Mareykanka oo ciidamadiisa kala baxaya dalka Jarmalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu kala baxayo dalka Jarmalka oo ay saldhig ku leeyihiin wararka ka soo baxaya xafiiska madaxweyne Trump ayaa lagu sheegay in marka la gaaro bisha September ee sanadkan uu la baxayo 9500 oo askari oo ku sugan dalka Jarmalka warkan waxa lagu sheegay in ciidamada laga qaadayo saldhigga Jarmalka ku yaala ayaa dib loogu daabuli doonaa dalka Mareykanka madaxweyne Trump waxa uu sheegay in tani qayb ka tahay qorshaha uu ka dhimayo ciidamada Mareykanka ee gaashaanbuurta NATO ku jira dhinaca kale intaan ka bixin wararka Mareykanka in ka badan 50 sargaal oo ka tirsan booliiska magaalada Buffalo ee dalka Mareykanka ayaa shaqada iska casilay kadib markii saraakiil kale oo kuwa magaalada ah shaqada laga joojiyay saraakiisha shaqada ka tagay waxa ay tiradoodu gaaraysaa 57 xubnood Mareykanka wali waxa ka socda rabshado ka dhan ah dilkii loo geystay wiilkii madowga ahaa oo ku baxay gacanta booliiska Mareykanka faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday saldhigga Al-Qaacida iyo Daacish ay ku leeyihiin dalka Mali wasaaradda gaashaandhigga dalka Faransiiska ayaa si rasmi ah u shaacisay in ciidamadeeda jooga dalka Mali ay howlgal gaar ah ku dileen hogaamiyihii ururka Al-Qaacida ee waqooyiga Afrika oo la oran jiray Abdimalik Turuktel haweeneyda wasiirka gaashaandhigga dalka Faransiiska Florence ayaa waxa ay sheegtay in howlgalka oo ahaa mid gaar ah in sidoo kale lagu qabtay hogaamiye kale oo sare oo ka tirsanaa ururka isku magacaabay khilaafada dawladda Daacish oo loo yiraahdo Maxamed Marabat hogaamiyaha dawladda Faransiisku sheegtay in la dilay waxa uu sidoo kale ahaa hogaamiyihii ururka hubeysan ee ka jira dalalka Afrika ee Saxaraha ka hooseeya ma jiro wali wax war oo ka soo baxay ururada Al-Qaacida ee weerarka lagu qaaday intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena wararka isha sirdoonka tan intaan barnaamijkan mid lamid dib u kulmi doono
sidaa iyo nabadgelyo.